muddadan abaaru ay ka jireen guud ahaanba geeska Afrika gaar ahaan gobolka Sanaag oo imika aan ku sugannahay waxa samaysmay degmooyin fara badan oo tan imika iga dambayso kala oo crusherka loo yaqaano waxay ku taalaa duleedka magaalada Garadag waxa la ii sheegay muddo dhowr bilood ah in dadku ay halkan deganaayeen ninkana kamida guddiga deegaankan walaal magaca Nuur Salmaan baa la yahay waxaan kamid ahay guddiga crusherka oo 7 ah iyo gudoomiyahooda marka muddo intee lag baa dadku halkan deganaayeen 3 bilood bay deganaayeen dad intee lag baana degan waxa degan 450 qof dadkaasi marka Nuuro halkay ka kala yimaadeen dadkaas waxay ka kala yimaadeen ilaa iyo xeebta ilaa iyo bari ilaa iyo galbeed ilaa iyo bancad meesha la yaahdo waxa jira wali dadka qaarkood oo dhisanaya meelihii ay degi lahaayeen gabadhana kamida oo sida arkaysaan gacanta ku haysa dhismaha meeshii ay degi lahayd walaal magaca hindisa walaalkeedii la dhahaa hindisa marka adu imika timiya dhawaan baan imi way xageed ka soo qaxday waxaan ka soo qaxnay hawd ka xagee waxaan ka soo meel la yiraahdo coodanle waatay deedamadna abaartay keento waaniga dhisanaya bal hadda ka war xaaladiinu say tahay hadda aad bay wadagtaa waatay abaarta uun baa hadda laga yiraahdo magaalada ka yarna hele waxna ma haysano adduunkana uu naga dhamaaday hadii labadankeeda leeyahay waxa naga hadaysan dhisanayna hadda aan meel aan bacad ka arsano waxaanu joognaa meel ku taala duleedka magaalada Fiqi Fuliye oo ka tirsan gobolka Sanaag roobabka xoogga leh halkan ka daaya ayaa waxay keeneen dhulkii dooxooyinka ahaa oo dhamme inay noqdaan meel aan la mari kareynin gaarigii aanu wadanay waa san yahay laba gaari baanu ahayn gaarigii labaadna meel noo muuqata ayuu isaguna ku jiraa magaaladii aanu sidnay raashinka gargaarka ee Fiqi Fuliye halkan way nooga muuqataa laakiin dhulkan oo carra jileeca awgeed ayaa dhibaato xoog leh waxay ku noqotay in gaadiidkii ay mari kari waayaan markii gaarigii uu naga asmay uu ka bixi waayay ayaanu deedna iskaga soo lugaynay deedna gaarigii labaad ee nala socday ayaa wuxuu taagan yahay meel indoora jirta oo isagu ka baxay dhiidhigii marka kaasaan u sii lugaynaynaa magaaladii aanu ku soconnay cuntada gargaarka laga qaybin lahaa Fiqi Fuliyana in doora imika noo jirtaa deedna cagtaanu maalaynaa gaarigii hore waxaanu kaga nimi masaafad ilaa 10 kilomitir jirta deedna gaarigan oo markii hore ka soo baxay dhiiqada ayaa haddana nala galay weli magaaladii aanu ku soconay Fiqi Fuliye way noo muuqataa laakiin maadaama dhulkan uu yahay dhul banana masaafad aad u fog bayna weli jirtaa ninkan askariga ayaa na caawinaya oo hadda dhooqadii ka qodaya waxaan nahay aniga iyo Cali Dheer oo kamarmaanka iyo Raxma oo hay'adan cuntada qaybin lahayd ARC shaqaalaheeda kamida Raxmi London bay ka timi muddo dhowr bilood ay halkan ka shaqeynaysay Raxma tan kale hore ma aragtay wali tan kale ma arkin wada aragtaa waxaan u eegnay gabigayga inaan dambas ku soo galgalanay kabihina ma la socon karo waatay insha Allah waan ka bixi doonaa ma insha Allah waan ka bixi doonaa dhowr kilomitir oo kale ayaa inoo hadhay sidaan ku qiyaasayo telefoonno badan baanu diranay oo caawimaanu dadku weydiisanaynay waxay imika wax walba nagaga daran taawarka waa noo muuqdaa laakiin biyo aanu cabna ma haysano gaarigii hore dhiidhiga naga galay ayay biyihii noo saarnaayeen gaariga labaad markaanu soo gaadhnay intii aanu gelin biyo may saarnayn biyihii kaa hore wada saarnaayeen marka ilaa 3 saacadood ku dhawaad ayaanu imika halaagan ku jiraa laakiin si aanu gobolku halkan noogu dhicin waa inaanu haddana sii lugayno waxaan rajaynayaa halkan naga arkaan kama dambeyntii annaga waa lana soo gaadho nimankan odayaasha baa noo soo gurmaday wax kastoo na gaadhayba dooxadii maanta oo dhan aan lahaa dooxo koonfurta ka xigta Fiqi Fuliye waxa la sheegay in la yiraahdo Carraweyn
marka ila qabatay waxa weeyaan dhul bannaan ah oo wada dhiiqa ah marka inkastoo ilaahay dadka abaarihii ka soo jabiyey haddana waxa weeye si gurmad loo sameeyo iyo si dadku ay imika isugu soconayaan ayaan la garanaynin shaqaalihii kale hay'adda ee gargaarkan qaabilsanaa inay qaybiyaan weli waxay ku xaniban yihiin bankii Carraweyn marka mid ka mid ah saraakiisha hay'adda ARC oo nala socota ayaa sheegi doonta deeqda maanta ay guddoonsiinayaan magaaladan maanta anagoo ka soconaa hay'adda ARC American Refugee Committee waxaan keenay magaalada Fiqi Fuliye 200 oo qoys raashin gaaraysa iminka waxaad aragtaa 100 qoys waxa ku jirana cuntadan keenay bariis daqiiq sonkor caano timir rabadaantoo dhan deeqaysa ARC wixii noo keentay waanu ka mahad celinaynaa wayna noo keentay waana soo gaarsiisay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa